واتما Soomaaliya waa dal asal ahaan dadkiisu ahaayeen ama ahaani jireen dad haysta diinta Islaamka. Waa maxay diinta Islaamka? Diinta waa wax kulansanaya dhammaan wax Rabbi kugu waajibiyay. Waa diin kulansanaysa shaamil likulli zamanin wa makan, xilli walba u suuban oo asaasiyaadka qofka bini'aadamku u baahan yahay idil kulansanaysa. Kitaabka iyo sunnahana waa dastuurka nabadgelyada markii aan Soomaali ahaan u qeexno ama ku dhaqanka diin nabadgelyo leh. Maxay tahay dad diin nabadgelyo haysta oo haddana islaynaya, isnacab, qabyaalad isku dila? Marka hore waa in aan fahanaa maxay Soomaalidu isku dishaa. Taas jawaabteeda aniga ka jaahil bixinayo. Horta Soomaalidii hore waxay tan oga duwaneed taas. Dadku waxay isku dili jireen xoolo la kala dhaco iyo dhul daaqsimeed oo kaliya. Maxay hadda isku dilaan? Waxay isku dilaan maadaama ay tahay Soomaaliya dal la soo guumeystay, dhago adag, wax maqalkuna ku yar yahay. Waxa ay noqon waayeen markii guumeystuhu ka baxay in ay iyagu kala talo qaataan oo dad wada tashta noqdaan. Nasiib darro waxaa dhacday in dadkii Soomaaliyeed ay isjeclaa in mid waliba walaalkiis geed u galo oo cuqdad ka dhex abuuranto, sidaasna loo waayo dal iyo dad wada jira. Maadaama dadku ku wareereen siyaasadda isdiidan ee siyaasiyiinta walaalaha ah, colaad ka dhex abuurtay hab maamulkooda, isdiidanaanta xagga siyaasadda, isdiidanaanta xagga diinta, isdiidanaanta xagga ganacsiga iyo wixii la midka ah. Dad qalbigoodu dhagax noqday si ay u soo laabato waxay u baahan tahay in wacdi iyo waana lagu kabo. Wasulxu khayr. Laakiin sadibka jira ayaa waxay tahay dadku qofka saalixa ah oo dantiisa kaliya fiirsado way jecel yihiin. Yacni qofka naftiisa kaliya qofka naftiisa kaliya daneeya oo dantiisa bas fiirsada, dadka kale aan ku mashquulin, xumaanta aan ka reebin, waxa qaladaadka ka dhacay jacan ka dhihin, aan ummada warboorka aan iska jafna, cadawga aan iska dhicina aan dhihin. Macnaha qofka naftiisa kaliya daneeya. Maxay meesh dadka kale maxaa iga galay? Asaga kaliya naftiisa kaliya wanaajiya. Dadka way jecel yihiin. Laakiin dadka waxay necab yihiin qofka muslixa ah ee naftiisa iyo tan dadka wanaajiyo oo khayr iyo wanaag iyo dantooda ka shaqeeya, sida cadawga iskaga dhicin lahaayeen, sida kor isku qaadi lahaayeen, sida u walaaloowi lahaayeen, sida u midoobi lahaayeen, sida wax u wada qabsan lahaayeen. Qofka ka shaqeeya dadku mar rabaan oo way necab yihiin, qofkaas way necab yihiin. Walaakin la tuhibbuna an-nasihin. Laakiinse idinku ma jeclidin nasteexo iyo waano. Dadka nasixiinta ma rabtaan. Xilli waxaan joognaa xitaa dadnimadaada lagu qabsan oo lagu dili. Xilli waxaan joognaa qofka ku dhaha war aan cadawga iska celino oo aan iska difaacno lagu oran wad waalan tahay. Xilli waxaan joognaa hadaad ku dayato dadkii ku soo halgamay oo naf iyo maalba ku bixiyay si aan lagu adoonsan in maanta lagu arko qof xun oo wax magarata ah. Waxaan soo xasuustaa orahdii filosoofka Giriiga u dhashay Socrates, waylun lilladhi yasbiqu aqlahu fi zamani. Waxa hoog u sugnaatay midka aqligiisu xilliga uu nool yahay ka hormarsan oo waxyaalaha soo socda ka diga warsan aan yeelna iyo waxaan aan yeelno. Qofkaasi hoog waxa u sugnaatay halaag guulaha oo waa la dilay. Asagana waa garta taariikhdiisa markii dambe waa la dilay. Maxaa lagu hasto lagu dilay? Maxaa sidaan u oranay? Maxaa wax soo socda oo hadla adiga? Wax aan iska dhicino maxaad u leedahay? Anaga tiim baa hadda joognaa. Waxaan kala soo xasuustay sheeko dhex martay iyo yey waa garan yeydu waxa weeyaan basha anaga u naqaano ay duur eyga oo yareeg kooxda isku la socota ayaa sheekaystay. Eygii baa su'aal weydiiyay waxa la yiraahday bal ka waran dadka. Eygu wuxuu ku jawaabay markay rabaan in qof ayaga kamid ah inay xaqiraan oo yasaan oo yacni qof waxba aan ka soo qaadaan waxay ku tilmaamaan ey bay ku tilmaamaan oo qofkaas ey way ay yiraahdaan. Su'aal kale la weydiiyay waxa lagu yiraahday carruurtooda miyaad cuntay? Wuxuu dhahay may. Ma dhagartay? Wuxuu dhahay may. Waxa kale ay weydiiyeen aniga markaan soo weeraro xoolahooda ama carruurtooda aan damcay inaan cuno ma iga ilaalisaayo ma iga hormaato ma difaacda? Wuxuu dhahay haa.